السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta maadadan xisaabta waxaan u qaadan doonaa buuga fasalka lixaad ee maadada xisaabta. mowduucan wuxuu ku saabsan yahay ama casharkeeni maanta qaadan doono wuxuu ku saabsan yahay isu geynta, kala goynta, isku dhufashada, isu qaybinta bilo leh. halkaani waxaa ku kulmay xisaab loo yaqaano ku dar, kajar, ku dhufasho iyo isu qaybin oo waliba oo bilo ku dhex jiraan. marka xisaabta noocaas tahay sidee loogu shaqeeyaa, sidee u xalin karnaa waa su'aal. halkaani waxaan ugu qoran maanta mowduuceeni isu geynta, kala goynta, isku dhufashada iyo isu qaybinta bilo leh. iyagoo waxaa jiraan bilo la'aan ah, iyagoo bilo leh, iyagoo bilo la'aan ah iyo iyagoo bilo leh waxay kala duwan yihiin ayaanu sheegi doonaa. waxa waaye markay bilo la'aan yihiin meeshaasi waxaa ka maqan ama waxaa ka baxay xeerka kala horumarinta ee bilo. laakiin markay bilo leeyihiin xeerkan ayaanu isticmaalaynaa, xeerka kala horumarinta. sida loo kala horumarinayo oo loogu shaqaynayo ayaan u dejinay xeerkaasoo ah halkan waxaa ku kulmay bilo, isu qaybin, isku dhufasho, ku dar iyo kajar. haddaba waxaan kuu sheegayaa xisaabta isu geynta, kala goynta, ama isku geynta, kala goynta, isku dhufashada, isu qaybinta bilo leh. markaad la kulantid waxaad ugu shaqaynaysaa xeerkaani. haddaba hadday xisaabtaasi ay leedahay bilo, iyagoo bilahaasi xisaabfalada ku jiraan adigoo xalin, ha u gudbin xisaabaha kale. markaa bilaha xisaabfalada ku dhex jiraan markaad xalisid kadib ayaad waxaad u gudbi kartaa xisaabta qaybinta ah. iyagoo adigoo xalin xisaabta qaybinta uma gudbi karta oo kama shaqayn karta xisaabta isku dhufashada. adigoo isku dhufashada xalinin kama shaqayn karta xisaabta isu geynta. adigoo isu geynta xalinin kama shaqayn karta xisaabta kala goynta ama kajar kama shaqayn karto. haddaba anagoo xeerka ilaalinayn waxaanu leenahay tusaale 4 lagu dhuftay 8 lagu daray bilfur ama qaansado 10 loo qaybiyay 5 bilxeer ama qaansad laga jaray 3 maxay la mid tahay. marka hore waxaa lagu yiri xisaabta hadday bilo leedahay xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha waa inaad xalisaa, kadib ayaad u laabanaysaa xisaabaha kale. xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha waxaa loo yaqaanaa 10 loo qaybiyay 5. marka hore waxaa samaynaysaa xisaabtaas ayaa soo dejinaysaa. xisaabtani waxaa soo dejinaysaa 4 lagu dhuftay 8 lagu daray ayaa soo dejinaysaa. xisaabtan markaa soo dejiso tani ma soo dejinaysa adigoo tan ka shaqeynin, kadib ayaad soo dejinaysaa. marka waxaan leenahay 10 loo qaybiyay 5 maxay la mid tahay. haddii 10 ku shilin ama $10 aad haysatid oo aad doonaysid inaad u qaybiso 5 qofood, inaad u qaybiso hadaad doonayso qof kasta ka mid ah 5taas qofood imise lacag ayuu helayaa. aniga waxaan hayaa $10, waxaan doonaya inaan u qaybiyo 5 qofood. haddaba waxaan ognahay haddii $10 aan u qaybiyo 5 qofood, 5taas qof kasta ka mid ah inuu helayo $2. sidaas darteedii haddii 10 loo qaybiyo 5 waxay la mid tahay 2. waan ka shaqeeyay xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha, waan ka shaqeeyay 10 ayaad u qaybiyay 5 waxaa ii soo baxday 2. kadib waxaan soo qaadanayaa laga jaray 3. waxaan soo qaadanayaa laga jaray 3 maxay la mid tahay. haddeer xisaabtan waxaa isu kulmay isku dhufasho, isu geyn iyo kala goyn. waxaa ka maqan xisaab bilo iyo waxaa ka maqan isu qaybinta, calaamada isu qaybinta. marka hadday xisaabta bilo aysan la helin waxaan horumarinaa isu qaybinta. isu qaybinta haddaysan la helin waxaan horumarinaa isku dhufashada. haddana xisaabtan waxaa isugu imaaday isku dhufasho, isu geyn iyo kala goyn. isu qaybin kuma jirto, waxaa ku jirto ku dhufasho, ku dar iyo kajar. ku dhufasho iyo ku dar iyo kajar xeerka waxaan kala horumarinta lagu qornaayay. hadday xisaabta bilo leedahay bilaha la horumarinaa, haddii bilaha la waayo qaybinta la horumarinaa, haddii qaybin la waayo isku dhufashada la horumarinaya. haddeer waxaan horumarinaynaa calaamadaha ku dhufo, ku dar, kajar. waxaan horumarinaa ku dhufo. waxaan leenahay 4 haddii lagu dhufto 8 maxay la mid tahay. 4 lagu dhuftay 8 waxay la mid tahay 32.
soddon iyo labo waxaan soo dejinaynaa xisaabaha ka dambeeya lagu daray labo laga jaray saddex maxay la mid tahay weliba waxaan ku jirnaa xisaabta weliba sii socotaa xeerka kala horumarinta halkan waxaa isugu yimaadeen laba calaamadood calaamada ku dar iyo calaamada ka jar calaamada ku dar iyo calaamada ka jar teebaa horumarinaynaa xeerka aan ilaalino waxaa lagu qoran inkaan bilo kuma lahan qaybin kuma jirto ku dhufasho kuma jirto waxaa isugu yimaadeen ku dar iyo ka jar isugeyn iyo kala gooyn sidaas darteed waxaa isugu yimaadeen isugeynta iyo kala goynta isugeynta iyo kala goynta waxaan horumarinaynaa isugeynta xeerka anigoo ilaalinayno soddon iyo labo haddii lagu daro labo maxay la mid tahay soddon iyo labo haddii lagu daro labo waxay la mid tahay soddon iyo afar calaamada kala soo deji magaceedii waa saddex haddaba jawaabta haddana ba iskeenaysaa waxaanu idin waxay ahayday xalinteeda ayay ahayday haddeer halkan waxaa keli kusoo hiray calaamada loo yaqaano ka jar sidaas darteed soddon iyo afar haddii laga jaro saddex maxay la mid tahay soddon iyo afar haddaan ka jarno saddex waxay la mid tahay soddon iyo koo adigoo soddon iyo afar ku wadato haddii diin qaadatay hadda ka hore ama haddaad doonayso inaad wax iibsato waxaad iibsanaysay shaygii hadduu qiimihiisa yahay $3 soddon iyo afar $, ka jar $3 waxaa kuu soo harayso soddon iyo koo $. sidaas darteed afar lagu dhuftay 8 lagu daray yaa xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha 10 loo qeybiyay 5 laga jaray 3 ayaa jawaabteedu waxay la mid tahay 31 waan islaamna malena midaan waxaa lagu dhahay 10 loo qeybiyay tani halkan ayay ku dhamaatay mid labaad aynu galeynaa 10 loo qeybiyay 2 lagu dhuftay xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha waa 40 laga jaray 6 lagu daray 8 haddaba waxaad isweydiinaysaa xisaabfalada ku dhex jiraan bilaha waxaa waaye calaamada ka jar iyo calaamada qiiminta waxaa soo horeeyay qiiminta sida xisaabfalada bilaha ku dhex jiraan loo xalinaya markasta xeerka waxaad ku ilaalin doontaa haddii ay tahay bilo meesha hadday yaalaan ay nooc calaamad kasta ha ku jiraato calaamad kasta oo ka mid ah xisaabaadka lagu xaliyo ha ku jiraato waxaad horumarinaysaa markasta halkan ayaad ku dhowrina xeer markasta xisaabta sharcigeed halka ayaad ku ilaalinaysaa hadday bilo yaalaan bilaha xisaabfalada ku dhex jiraan ayaad xalinaysaa kadib ayaa qaybin xalinaysaa kadib ayaa ku dhusha xalinaysaa kadib ayaa ku dar xalinaysaa kadib ayaad ka jar xalinaysaa waa isfaana mulana sidaas darteed waxaan soo dejinaynaa 10 loo qaybiyay 2 lagu dhuftay ayaan soo dejinaynaa waxaan xalinaynaa xisaabfalada bilahan ku dhex jira ayaan xalinaynaa 40 kun adigoo haysato ama 40 ku shilin adigoo haysato haddii aad ka jartid 6 ku shilin imise lacag ay kuu soo harayso adigoo $40 haysato ayaad waxaad iibsatay shay qiimihiisu yahay $6 imise lacag ay kuu soo harayso waxaa kuu soo harayso 34 lacag ay kuu soo harayso kadib waxaad soo dejinaysaa calaamada lagu daray 8 waa soo dejinaysaa haddeer halkan waxaa naga maqan xisaabta lagu magacaabo calaamada lagu magacaabo bilaha iyo waxaa naga maqan calaamada lagu magacaabo kala goynta ama ka jar waxaa isugu soo haray isu qaybin isu dhufasho isu geyn haddaba isu qaybin isu dhufasho isu geyn waad u jeedaa xeerka kala horumarinta hadday isu qaybin taalo lama horumarin karo isku dhufasho waxaan horumarinaynaa isu qaybinta sidaas darteed hal xab ayaan ugu shaqeynaa maxaa yeelay calaamad walbo tartiib ayaan ugu shaqeynaynaa waxaan leenahay 10 u qaybi 2 adigoo 10 ku shilin ama $10 haysato haddii aad doonayso labadan qofood inaad u kala qaybiso $10 haddii laba qofood u qaybinayso qof walba meeqa ayuu qaadanaya labadaas qof ka mid ah wuxuu qaadanaya dadku waxay ka kooban yihiin laba qofood lacagtu waxay ka kooban tahay $10 kan 5 ayaad siinaysaa kan 5 ayaad siinaysaa labadoodu waxay qaateen xisaab oo wada siman oo ah 5 ayay qaateen qof kasta ka mid ah labadaas qof wuxuu qaatay 5 waxaan soo dejinaynaa lagu dhuftay 34 lagu daray 8 ayaan soo dejinaynaa haddaba halkan waxaa isugu haray calaamada ku dhufo iyo calaamada ku dar ayaa isugu soo haray calaamada ku dhufo iyo calaamada ku dar ayaa isugu soo haray teebaan horumarinaynaa waa su-aal waxaan horumarinaynaa calaamada xeerka kala horumarinta anagoo ilaalinayna ee isku dhufashada isu geynta waxaa ka horeeya isku dhufashada waxaan dhahaynaa 5 lagu dhuftay 34 maxay la mid tahay 5 lagu dhuftay 34 waxaad dhigi kartaa
soddon iyo afar lagu dhuftay shan maxay la mid tahay shan ku dhufa afar waa labaatan eber qor maxaa wadataa labo shan ku dhufa saddex toban iyo shan labo ku dar waa toban iyo toddobo sidaas darteed soddon iyo afar ama shan markii lagu dhuftay soddon iyo afar waxay la mid tahay boqol iyo toddobaatan ayay la mid tahay waxay la mid tahay boqol iyo toddobaatan kadib waxaad samaynaysaa calaamad ayaad soo dejinaysaa iyo xisaabta xig lagu daray sideed soo deji toban ayaan u qaybinay labo waxaa soo baxday shan ayaan ku dhufanay soddon iyo afar waxaa soo baxday boqol iyo toddobaatan ayaan doonaynaa inaan ku darno sideed haddii $700 inagoo haysano haddii aan ku darsano $8 imise lacag ayaanu helaynaa haddaba jawaabta waxay noqonaysaa $170 haddii lagu daro $8 waxay la mid tahay boqol iyo toddobaatan iyo sideed ayay la mid tahay sidaas darteed toban loo qaybiyey laba lagu dhuftay xisaabfalada bilaha afartan laga dir lix lagu daray sideed ayaa jawaabteedu waxay la mid tahay boqol iyo toddobaatan iyo sideed xisaabtan waa buugga lixaad waa fasalka lixaad ee buugga xisaabta waxaan rajaynayaa xisaabta isugeynta kala goynta isku dhufashada isu qaybinta ee bilo leh in la fahmay waxaa lagu keeni karaa iyagoo loo isticmaalayo bilo isugeyn iyo kala goyn waxaa lagu keeni karaa iyagoo loo isticmaalayo bilo kala goynta iyo isu qaybinta oo kale mar kasta waa lagu kala bedeli karaa mar kasta 3 calaamada lagu keeni karaa mar kasta 4 calaamada lagu keeni karaa mar kasta waxaad ku ilaalisaa xeerka kala horumarinta xisaabtu haddaad doonayso inaad mar kasta si dabiici ah oo saxan inaad ugu shaqeyso xeerka ayaad ilaalinaysaa bilo qaybin ku dhufasho ku dar ka jar ayaad ku ilaalinaysaa xeerkaas ay xisaabtan u degaan sidoo kale waxaan rajaynayaa inaad fahamteen waxaan ka codsanayaa walaalkayga xisaabta inaad share gareysid wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh janalka ku xirnaaw waxaan ka caawin doonaa maadada xisaabaadka hadduu ilaahay kala noqdo khayr badan walaal